السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبون داوديال إذا هانتين بمل كستاد جوكتان iyo si kasta noo daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka beeraha iyo xoolaha telefishinka Shabeelle. Toddobaadkii mar ayaad ka daawataan telefishinka Shabeelle. Toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Jowhar ee caasimadda Shabeelle. Waxaa marti inoogu ah Xuseen Maxamuud Jimcaale oo loo garan og yahay ama ku magac dheer Daamey oo ah gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeralayda Horseed. أنا وياي خبير دنك بيرها واحد بدنا كسر شقي بيرها كسره برامج دوا واي وحنا كاوري صندوقنا ما دام ويا بدنا كسر شقيني دنك بيرها ورانتي دلك المركو لها دولدي دلك سدي أيها تعبك بيرها بسم الله الرحمن الرحيم horta beeraha waa laba nooc ee ahaayeen beero qaar waxa iska lahayd dawladda oo beeraha dawladda la dhihi jiray beeraha qaarna waa beeraha tacabka dadweynaha runtii aniga beeraha dadweynaha aqoon saas uma lahayn laakiin beeraha dhinaca dawladda waxaan ka soo shaqeeyay mashruucii sokorta mareerey oo aan ka ahay laanta diyaar gareynta iyo waraabinta dhulka waxyaabihii markaasi laga shaqeynayay maadaama dalku dawlad uu lahaa isku filnaashana uu lahaa dalka oo beeralaydu ay ahaayeen kuwa gacan ka helaya dawladda ama siyaabo kala duwan u helaya taageero bal xilligaas iyo waxyaabihii aad ka shaqeynayseen aad abuureyseen maxaa ka mid ahaa wallaahi laba qaybood ayaan ka soo shaqeeyay qaybtii ugu horeysay ee mashruucii sokorta mareerey wuxuu ahaa qasab waxaan soo saari jirnay qasabka qaybta oo waraabka iyo waraabinta dhulka iyo diyaar gareyntan u qaabilsanay halkaas ayaan joogay muddo badan ayaan ka shaqeynay markii dambe waan ka ruqsaystay waxaan u tagay haddana mashruucii Magambo oo ah laan macnaha la keeno dhalinyarada ardada ah ama shaqo gabidda nimanka shaqada gabay oo dawladda u shaqeynaya shaqo macnaha tanka 60 ama 70 gaaray oo loo keenay inay beeraha tabcadaan beerahaas oo hadana lagu dhigi jiray bariiska iyo maxaan ku sheegay galeyda iyo diirta iyo waxa lagu dhigi jiray hadana waa ka soo shaqeeyay oo hadana ilaa muddo 4 sanadood ka soo shaqeynay way habtacabka xilligaas iyo qaabka beerta loo beeriyay bal iyo xilligan hadda aan u joogno farqiga u dhaxeeya diyaar nooga shaqeyso wallahi wax weyn baa u dhaxeeyay dhulkaas markaas ma laga shaqeynayay ninkasta dhul dawladeed ay ahayd dhulka waa la diyaarinayay waa la labeelinayay waa la sameeyay si ay biyaha u wada gaaraan biyaha marka laba nooc ayaa loo waraabiyaa nooc dhulka ka soo galo oo sida hadda fartaan oo kaleeto oo ku waraabo iyo ruux biyo iyo qayb oo kor looga keeno oo la yiraahdo waraabka cirka dhulka la yiraahdo oo kor ka yimaado oo macnaha qayb mar la waraabiyo markii beeraha la waraabinayna waxa fiican qaybtan dhulka oo farta marayso iyo qaybta waraabka kore fiican waxay ku fiican tahay waxay dilaysaa cayayaankii saarnay ay ka ridaysaa dalagga cayayaankii saarnay ay ka ridaysaa waayo biyihii kore ugu imaanayaan biyihii kor ugu yimaadaan cayayaankii dhacay cayayaanka wuxuu ku dhacayaa biyihii waa dhimanaya laakiin markii dhulka lagu waraabinayo wuxuu soo fuulaya geedkii soo fuulaya gabaado ka dhiganaya marka noocaas labadaas nooc loo kala waraabiyaa beeraha bal markaas waxyaabihii dhulka lagu bacrimin jiray bacriminta badana markii anaga aan bacriminayno waxaan ku bacrimin jirnay diirta iyo salbugta oo kale beerta markii duqowdo oo mashruuca laba mashruuc ay aayeen mashruucaas markii beeraha ka duqobaan beertaas waxa lagu bacriminayay sisinto kala lagu dhigaa dalabkaas la bedela dalabkaas ama qasab ha ahaado ama qudaartan kale sisinta iyo diirta ha ahaado galeyda ha ahaado bariiska ha ahaado beerahaas waxa lagu bacriminaa markii oo bacrimin la rabo waxa lagu shubaa diir salbugtaasi markay ku baxdo ma la jaraayo waa lagu falaa waa lagu falaa markii lagu fala kadib ayay waxay dhaqanaysaa marka bacrimin midda kale qalabka loo beeraha oo hadana loo daawooyinka beeraha si fiican u haysanay waa yiileen oo si fiican beeraha waa la buufinayay waa daaweynayay ciladaha waa laga daba taagnay waa gartay markii sida yuurayada iyo TSB do kale iyo adag
هذا اللي استعمالها bacrimintaasi dhulka aad sameeynayeen ma fasal walba markii beertu ay la tacbi rabo iyo lagu sameyn jiray mise markii loo arko dhulka inuu bacrimin u baahan dhulka markuu inuu baahan yahay bacrimin oo macnaha shaygii laga baxay shaygii lagu tabcay oo kori waayo waa kori wayna dhaqaaqiisa ay yaraanayo markaas waxa la ogaanaa dhulkaas inuu macnaha nafaqadii ay ka dhamaatay kadibna waa la baxrimina waa la falaa waxa lagu dhigaa dalabkaas dalab ka gedisan way ma adiga umba indheynayay mise caradii ayaa baaritaan waa la baaray waxa joogtay shay baarista joogay waxa jooga qaybta la yiraahdo qayb waxa joogta istaleeriya la yiraahdo oo macnaha baarto beeraha oo carrada baarto ayadaas marka amar ku siinaysa beerta in la bedelo adiga waa bixinta geynaysa wax kasta bar ribooda qori qasabka ama beerta ay joogtid subax kasta ribooda ka qori weeshay bariso intay marayso waqtiga goosmadeeda dalanta saacad maalin kasta ribooda laga rabaa riboodkaasi maalin kasta marka gudbiyay markad waxa guriga beertaas inay kori wayso ay macnaha ay halawday ay u baahan tahay kadibna waxa imaanaya qoladii bacriminta carray ka qaadanaya waa soo tijaabinaya kadib waxay u baahan tahay iyaga soo gudbinaya waqti waxaad u soo joogtay dalku hodan uu ahaa dhan walba wax soo saarka markii loo dalagyada inta badan waqtigaasi beeralayda Soomaaliyeed ay beerayeen ogaalka maxaa kamid ah wallahi galeyda iyo sisinta yareed oo sisinta badan lama tabci jirin laakiin galeyda iyo masagada iyo diirta aad loo tabci jiray looska intaba aad loo tabci jiray dadku sidee suuq geel u heli jireen ma dawladda ka iibsan jirtay mise dibadaha loo sii qaadi jiray dalagaasi beeralayda u baxay dalagaas badana wax dawladda la wareegi jirtay dawladda qofta maalgelin ayada bixinaysa bangiga ka siinay bangiga markay ka qaatadeen oo beertaas ay maalgeliso markay ay beerta u soo baxdo lacagtii laga rabaa inuu soo celiyo hadii uu noqoto biilkiisa laga reebaa waxa kala dawladda la wareegaysa dawladda markay la wareegtay ADC lagu shubi jiray ADC na dawladda markii haddana baahi ay timaado ee dib u soo bixi jirtay haddana dadka sii jirtay waa jirtay bal xilligaasi qoysaska dadka beeralayda ah sidii ay ahayd wallahi aniga kullee intaan xasuusto ma dadka baahi badan ma jirin hadda abaarahan faraha badan oo istaba jooga ma jirin dadka waxa ay dad shaqeeyo iyo dad beeraley dadku waa kala qaybsanaa iyo dad ganacsiga qofka meel loogu hagaagi jiray qofka marka beeraley haduu yahay beeraleyda waxa loo ogolaa inuu bangiga ka qaato deyn oo iyadoo waliba damayn leh way waxa u soo joogtay iyadoo dawladii dhexe ay jirto dalkana cagihiisa uu ku taagnaa sidoo kale dawlad la'aantii markii ay dhacday oo dalkii foodo uu galay wad u soo joogtay wal hadda xilligan aan ku sugannahay Hussein Maxamuud Sucaale daami loo garan og yahay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeralayda horseedaya ka mid tahay xilligan bal dhulkii xaaladiisii si guud haddii aad nooga sheekayso xaaladda beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar oo goobjoog ah u tahay runtii horta markii burburkii uu dhacay waxa dhacday xalafin wadanka oo dhan dhirtii waaweyneed oo dhan in la iska jaro la baabi'iyo dhulkii beeralayda la tabci waayo colaad darteed muddo marka waxa la ahay dad oo meel u socdaan iyo meel wareeg dheer ma soo gumra meeshii saaka ka tagtay ay imaanaysa marka dhibkaas markii laga soo gudbay markaan kaaga hadlo gobolka Shabeellaha Dhexe marka ugu wax saarka badnaay xilligii Maxamed Dheere oo ahaa xilligii Maxamed Dheere ayadoo beeraha la tabci waayo oo cabsi badan jirto oo beeraha laga daajiyo oo dhibaato badan jirto ayuu yimid Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Dheere aniga waxaan leeyahay maanta Allah u naxariisto qofka markuu tago ayaa waxa la ogaadaa wuxuu yahay marka waxtarkiisa Maxamed Umar Xabeeb marka runta ku sheego wuxuu lunka galeyda ah wuxuu yiri qoftii beer ku daajiso loodina waa laga ganaxay lunka galeydana waa loo qiimeynay oo lacag ahaan qofta ugu celinay macaan loo salulkaas ma noqon karaa 8,000 calaalun lagu dhufana ma 20,000 lagu dhufana daysin qoftii lacagta uu celinaa 20,000 Maxamed Dheere ka qaadanaa marka qoftii wuxuu awoodi waay inuu beer deeyo oo beer ku deysto
kow waxaa kaloo soo baxday oo maxamed dheere uu sameeyey macaawin oo dhan oo joojiyey wuxuu yidhi ninkii wax ii qabanayo beeraha ha ii qabto kanaalada ha ii qodo reeska waxyaalaha kale ha ii sameeyo markaasi waxay gaartay in uu wax soo saarka gobolka Shabeellaha Dhexe maalintii ay ka baxdo ilaa iyo 10 iyo 15 baabuur ama 20 baabuur ay ka baxdo midna ay hiraan u baxdo xamarna ay u baxdo gaas ahaan marka aniga kaaga soo hadlo ganacsata qarar faanahay markaas waxaan gadayay galeyda iyo diirta iyo bariiska aan gadayay liisanta galey sisin macdiir iyo waxa inta ka qaaday iyo bariiska dalka waxaan geeyay Kismaayo geeyay waa dhul aad u dheer xamar aan geeyay waa loo gadmi waay baabuura shab ku siin Kismaayo aan geeyay Kismaayo markaan geeyay baabuurka korkiisa lagu qatay baabuurka korkiisa hatta baqaar ma ku dijinay heer waxaan gaarnay markii dambe aan qofna Jowhar aan fadhiisino qofna Xamar aan fadhiisino qofna Kismaayo aan fadhiisino baabuurta markuu soo rarno oo yimaado kii kale hore laga soo gado aan saas ku shaqaysanaba ilaa iyo muddo oo dalabka uu ka soo go'o adiga 6 bilooda aan saas ku shaqaysaneen dalagaas inta badan aad dhoofinaysan ilaa Kismaayo aad geynaysan waa koobnaa diirta iyo bariiska dalka way tacabka bariiska Jowhar aad ay uga amaanad way badan waxa ay ahayd meelaha ugu muhiimsan ee laga soo saariyay bariiska xilligan iyo xaaladda beeraha bariiska waasi wallahi horta xaaladda hadda lagu jiro waxaba timidba fatahaad fara badan bariisna waxa waaye beer hadda qarash badan aga gelisaa dad fatahaad kuugu timaado ma ba soo kabsanaysidba qasaaba laga soo kabsanayna marka beerihii waxa ku timid fatahaad fara badan fatahaadii markii laga ceynta hadana waxa timid webiga inuu biyo la'aan noqdo hadana marka darbariiski wuxuu rabaa biyo qiyaasa oo daawadiisii asiga isla socda in la helo hadii marna fatahaad tahay marna ay webigii eber yahay bariis ma la dhigi karo dadkii marka beeraleydii waxay u hakadeen oo bariiska u yaraaday nin yaro meel markaas matoor saartay iyo wax noocaas ma ogiye beeraleyda dhamaansid waa iska dhaafeen bariiska waxay u dhaafeen cabsi darteed waxa tahay fatahaad markii biyihii oo la waayana hadana oo biyihii laga ceyntana waxa soo baxaya hadana webigii biyo la'aana bariiskina biyo rabaa way dabcan xilligan tacabkii bariiska ee la yaqaanay ma jiro ama waa ma jiro waa yar yahay hadii wax tabcan nin yar oo meel oo laaba haysto motorna haysta tabci karo ninkana ma tabco way waxa xubin muhiim ah ka tahay iskaashatada beeraleyda Horseed bal dhulka iskaashatada halkii ku yaala waxa nooga sheekaysaa qorshayaashiini waxyaabaha dhulkaasi aad ku beertay naga iskaashatada Horseed waxay degan tahay horta laba meelood qayb waxay degan tahay beera u dhow Libiga oo la yiraahdo kiliga asluubta ayaan deganahay qayb badan adiga ilaa iyo 80 qofood ilaa 80 beerood meeshaasaan ku leenahay inta kalena waxaan ku leenahay mayoon gaale labada beeroodba waxaan ku tacabnaa hadda xilliga la joogo aan ku dhignaa galey iyo digir way waxa u door bidnay galeydaas waqtigeeda iyo xilliga la joogo waxaan u door bidnay qudaarna waa la dhigaa laakiin waxa u door bidnay xilliga oo waa fududahay sida bariiska kaleeto 6 bilood inay qaato biyo kuma imaanayaan fatahaad looga baqi maayo ayadu waa ka fududahay waa 3 bilood 3 bilood marka intay biyihii fatahaad imaanin ayaa ka goosan kartaa hadii biyaha yaraadaan hadana galeyda matoora la saara karaa wixii beerta kili webiga u dhow waxaan u dhaweynaa nasiibkooda qabaan waa iska bixiyay way beeraleyda saxaab dhaqankooda xilli ay wax ku tacbaan xilligan ma isku jaango'an yahay isbedelo badan ayaa dhacay xilligu waa wareeray horta waxa waaye inkastoo beeraleyda xilli ay badan fiiriyaan hadda webiga kale markuu soo fadhiisto waxa la dhihi jiray webiga soo fadhiistay beeraha waa la diyaari jiray ka hor in la diyaariyo oo la falo oo la abuuro markuu soo diyaariso oo webiga soo fadhiistaa la waraabi jiray hadda marka webigii eber waaye wax la sii diyaariyo male beerihii roobkii waa yaraaday oo beer roobku soo baxayso male beerihii marka xilligii waa ka dhunyo waxa waaye xilliga hadda haddii webiga yimid wuxuu faa'iideynaya male
faa'iidadiisa waa biyo iska socday noqonay haddii keyd loo helin waay bal iskaashatada horseed xillimaa la asaasay haddii daawadayaasha aan sharaxaad badan aan ka siin iskaashatada horseed waxay asaasnaa ilaa 3 sano laakiin taariikh ahaan hadda korka ma hayo waay wax qabadkii iyo waxyaabihii 3 sano aad ku guuleysateen maxaa ka mid ah wallaahi waxaan ku guuleysanay dhinaca galeyda iyo qudaarta qoladan FAO marayna siisay abuurkaas si fiican looga faa'iideystay galeydii haba halawda laakiin qudaartii waxay noqotay mid magaalada Jowhar oo dhan qaadato sida yaanyada salaatada barbarooniga iyo qaraha si fiican ay u baxeen marka hatta tijaabo waa keenna hatta xafiiska STS aan la soo wadaagnay inaan keenno beerihii wixii ka soo baxay aan bandhigno hatta waa gartay bandhigaasi Jowhar lagu qabtay horaantii sanadkan waxyaabihii goobtaasi iskaashatada fursad ay ku soo bandhigtay maxaa ka mid ah intaasaan ku soo bandhignay sida hadda galeydo kale qaraha kale begelka kale salaatada barbarooniga waxaalihii la halmaalo diirta waxa aan tabciinaan ku soo bandhignay waay waxaan soo beegnay mahayna waxa beerayna nooga baxan ku soo bandhignay waay xilli roobaadkii guga inka waan soo dhaafnay oo xagayga ayaa ku jirnaa gugina sidii loo baahnaa roobka looma helin webiga Shabeellana wuxuu noqday mid xilligan aan la isku haleyn karin bal bandhigyadaasi iskaashatooyinka sanadka xiga ama bilooyinka kadib waxaa loo fili karaa haddii xaaladdu sidaan ay sii ahaato waxaa looma dhigi karo waa la dhigi karaa haddana sababta loo dhigayo waxay tahay hadda qudaarta waa la tabci karaa qudaar wax weyn ma qaadanayso qudaartoo kale hadda waa la dhigi karaa webiga yaraa looga faa'iidaysan karaa webigii ma matoora idin saaran matoora qaarna matooray leeyihiin ninkaan lahayn matoorkaas ayuu wuxuu bixinaa waxa la yiraahdaa bergarac shidaalku geesana bergarac waxa la yiraahdaa waa bixinaa saas uu ku waraabsanaa waa gartay yaasi ma ku filayay waa ku filayay qudaartu waa ku filayay beeraha dheer waa dibkeeda la hadda hore bariisa inaad tabcayaan iyadoo biyo la'aan ah waxaan ka soo saaray matooro afar habeen iyo afar baabuur ka socdaan beertiina gaari waa iska dhaafay beertii saddex ku bacday kharash aad u badan waa bismillah hal fuusto ku dhawaada ku bacday bal arimahaas oo kale qofka beeralayga marar badan hadday isugu tagaan bal moralka beeralayda sidee noqon kartaa waa niyajabayaan beeralayda midda kale meeshii oo hadda macaawinana laga sii lahay in beerahana loo hagaajiyo kanaalada loo qodo oo kiligu webigana laga buuro webiga wuxuu u baahan yahay sidiisaba markii oo fatahaada wuxuu ugu badbaadi karaa aaga u dhow webiga in laga durgo oo dhinac ugu yaraan ilaa 40 tilaabo ilaa 50 tilaabo oo loo ballaariyo arjada la dhiga kadib dhinaca kale sidoo kale la yeelo meeshuu markuu ku fatahi lahay intaas qaadanayso waay waxa jiray tababar ay siiyeen hay'adaha dhanka beeraha ku shaqada tababarkaasi ma aha midka beeralayda u baahnaayeen nacam si fiican waxyaalo badan oo aan anaka isticmaalin oo aan ka faa'iideysanay jiro waxaasi waxaa kamid ah habka galeyda loo qalajiyo anaka waxa waaye waa iska wari jirnay hadda waxayna siiyeen qalab lagu qalajiyo oo lagu ogaado qalajiska iyo qalab lagu qalajiyo lagu wero ayna siiyeen qalabka lagu wero waa iska lahaa jirnay faraashaan dhiga jirnay laakiin beertii ayadoo xoogaa mayuuc ah oo tankii loogu talagalay gaarin aan xareey jirnay kadibna waxay ku cagaaran jirtay fuustada laakiin hadda waxayna gaarsiiyeen heer aan galeyda aan xareynaynin ilaa aan tankeeda aan haysano makiinadihii aan ku baarin lahayn oo makiinadaas aan ku baarno galeydii markay tankeedii gaartay kabacdi aan fuustada lagu shubi karo markaasna macbis bedelaysa garanaysa abuurka ay xulan karto ma sha Allah si fiican waa gartay ma kala hadasheen maadaama fursado aad u hesheen kulamo isdaba joog ah madax ka socota WFP FAO inaad la kulantaan in arimaha waqtiga lagu soo beegayo sida dadka Soomaaliyeed inta badan ay ka cawdaan aad uga cawdaan waqtiga lagu soo beegayo waqtiga beeralayda dalaga uu soo go'ay arimahaas oo kale ma kala hadashay si fiican wax badan aan kala hadalnay waan u sheegnay in waqtiga aan abuurka loo baahan yahay hadaada keeninaha
waxba ma soo kordhinayso macnaha haddii macaawanada markay beeraha soo go'aan haddii macaawino la keeno waxba soo mumkinaysa beeciyay jibinaya ganacsatadiinay jibinaya intaasba waa kala hadalnay iskaashatooyinka macnaha hay'adaha wata WFP iyo FAO sheegeen waxa ka hortaagan in dalagga beeralayda Soomaaliyeed ay abuuraan in ay ka iibsadaan dibna ay ugu celiyaan dadka Soomaaliyeed waa inaga iibsanayna waana yiri laakiin maalinteena asaaseen ilaa hadda badar isku toosan oo noo baxay ay naga iibsadaan wali ma na soo garin beerihii macnaha halaaw iyo waxay ugu baxeen webiga fataha iyo maruu fataha iyo maruu maaragtay webi la'aan noqday iyo ku soo aaday marka anaga naftigeena haddaan dhaana galeydana haysanaa naga agata ay naga gada waayaan kadib waa dacaaday karnaa laakiin inta ay kale oo leeyihiin wax soo saara waa inaga gadanaynaa annagina aan wax soo saari waayne ayad mala ayake marka asaasan qabaa webiga Shabeelle wuxuu aaf ku noqday beeralayda Soomaaliyeed marna uu ku fataha dalagu ka jira marna waraab la'aan iyo maaragtay beeralayda ay ka qabantaa sidoo leedahay waa lagu maareyn karaa webiga waana laga faa'iideysan karaa والله هوران كوغو sheegay horta waxay u baahan tahay wasiirada Hirshabeelle wasiirka beeraha ama wasiir kastaba inuu horta shaqadiisa qabsado oo waajibaadka xilka ka saaran oo guto waajibka wasiirka beeraha markuu qabsado oo shaqadiisa qabsado oo beeralayda la shiro oo la fariisto oo maaragtay shuura la yeesho waxa u soo baxayso waxyaalaha loo baahan yahay marka u soo baxdana markay u soo baxdana waxa u soo baxayso wixii laga qaba lahaa marka anaka ilaa hadda maamulka xaqiisa ayaan ka dhimanay ma ogeeyay beeralayda niyadu wali waa leedahay oo shaqeysa laakiin maamul nala shaqeeyo oo uu heegana sidii waagi dawladda Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda ma hayno way bal isma bardhiga dii aan ku sameeyno dawladda Siyaad Barre beeralaydu ama dawladda dhexe dalka madaxweynayaal kala duwan soo maray waqtigaad u soo joogtay adigu Hussein Maxamuud Macaali Daami oo maanta la fadhiyo barnaamijka martinooga gacanta laga heli jiray dawladda dhexe bal qaabkay aniga horta dawladda dhexe waxaan laga soo shaqeeyay dawladda Maxamed Siyaad Barre dawlad ka horeysay ma xasuusto ma garatay dawladda Maxamed Siyaad Barrane shaqadeeda ciidan ku bilaabay 18 sano shaqaale dawladeed ku noqdaan 18 sano hanaan dawladeed shaqaale dawladeed ku noqday macnaha aqoonta qofka bini'aadanka beeralayda markuu noqon ama shaqo kasto laba qodob waay qodob oo waxbarasho jaamacadda uga soo baxo iyo qodob la yiraahdo garab saar dab sida ciidamada kale garab saar dab waxa la yiraahdaa ninka markuu shaqada hoos ka soo bilaabo oo ku soo gaaro meel sare oo ku soo gaaro way aragnimo oo kaashaday iyo ardaynimo أنا دكسي هوس دكسي دحا uga tagay iskool kadibna waxbarashadan kala caadiga ah maadiga aan galay maadigan ku soo shaqo bilaabay 18 sano shaqo uga bilaabay waxaan ka bilaabay shaqo markaan ku sheegay yaanyadan iyo wixii la halmaalo isbarimatal iyo orta qalal dhigi jiro ku tiilay isnay isbarimatal yaal dhigi jiray yaal orta la dhigi jiray yaal dhalinyar bisa ka shaqay jirtay waxyaabii ay qaban jirtay yaanyadan iyo begelka iyo salaatada iyo barbarooniga iyo waxyaalaha salata la sameyn jiray sida hadda wajaladan u yaalaan loo dhigi jiray salad sabid jiray maraan gurno iyo maraan timcino iyo maraan liin babeel ma gurno iyo maraan liin gabeel talaalno saasan macnaha way aragnimadeena ku soo qaatay beeraha gelisay kadibna waxaan hadana ku wareegay mashruuciisa horta mareere hadana shaqadaasaan hadana hore u qabtay shaqadaasaan hadana magambo ku tagay hadana marka dadkii inda u noqon lahaa isla markaana lagu dayan waxa inoo sharaxdaa dabcan iyo dadku inta badan isla fahmeen ayaa dhici karta marka maadaama qof aad tahay way badan u soo joogay Mugambo ay ahaan muxuu ka dhigan yahay Mugambo horta tuulo waay tuulo leeyahay Mugambo waay tuuladaas Maxamed Siyaad Barre wuxuu sameeyay dhul beereed oo wuxuu ku sameeyay lagu dhiga bariiska iyo galeyda iyo diirta iyo qudaar iyo ay nooc lagu dhigo beerahaas waa aseenda dhan waa dhul dhan oo inta wiiraan adiga 30 kilomitir camala ayuu sameeyay hodanku ah wax soo saarka webiga Jubbana ku dhagan webiga Jubbana ku dhagan kanaalo waaweyn loo jeexay marka meeshaas Mugambo tuuladaas marka loogu magac daray waxa sameeyay qola Jarmala ka shaqeynaysa shaqadaas lahayd marka dhulkaas beeraha waxa la keenay
ardada jaamacadaha ka soo qalin jibiyo oo baraatika lagu siinayay iyo waay aragnimo iyo dadka shaqada beeshinka noqdo oo shaqada macnaha ka duqoobo ala keenay meeshaas marka beerahaas waxa la yiraahdaa beerihii mashruuca Magambo la yiraahdaa marka mashruuca asaasa macnaha waa santahay Hussein Maxamuud Jimcaale jaamay ku magac dheer gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeralayda horseed martida barnaamijka yahay bal hadda qalabkii xilligaasi dawladda beeraha looga shaqeyn jiray dalka ma laga helaya wallahi ma arag dhulka aniga hadda waxaan xasuustaa beeraan diyaarinay beertii magaan diyaarinay waxaan la joogay nin Jarmal ah beertii waxaa dhex martay cagaf dhulku isku garaacay see u dhibad markaan wal diyaariyay maxaa u dhex maray ma la ogoleen beerta hadii la diyaariyo in la dhex maro waa dhulkii waa jilcan yahay wax soo saar bis oo diyaar u yahay cagaftaana waa adkeynay waa goor socotay magta dhulkii ay jukaynay ma ogoleen marka waa dhulku isku garaaci jiray marka aniga marka waa aragnimo aniga baraayay waxa la qalab badan waxa la soo xajay qalabada cagafyada ay nooc waa lagu xirayaa bakasto yaan badan waa diyaar garan waa falaysa yaan badan kale waa laga furaa hadara yaan bakalo qasabka ama galeeda duugaysa lagu sameeynaa galay abuuraysa lagu sameeynaa oo tubale sida hadda makiinadaha galeeda lagu shiido maar amal ay leedahay galeeda oo lagu shuba laba saddex ugu riday ayada cagaftaas abuurayso qof abuurayso beeralayda xilliga markii qalabkaasi waxay uga baaqsadeen qarashka tirada badan ay diidiyaan ma beeleli karee dawladda leeyahay magta qalab dawladeed ganacsi ahaan hadda wax u keenay ma arag haykalkii dawladnimo waa dumay dadkina waxay noqdeen kuwa markaasi la liita dawlad la'aantii jirta hadda waa la soo kabanaya xogaa ifaala nabad ayaa muuqanaya bal iskaashatooyinka kale ka jira gobolka gaar ahaan magaalada Jowhar xiriir inta la eg ayaa idin kala dhaxay iskaashato dhan waxa xiriir u dhaxeeyo dalad ay ku midaysan jirto ilaa inta iskaashato ayaa magaalada Jowhar ka tirsan wasaaraddu ay ka waraysaa la horta taas wasaaradda shaqadeeda tahay qof kasta shaqadeeda la raaco laakiin hadda 10 aan nahay iskaashatooyinka hadda shaqada wado oo ku soo guuleystay tartankii ugu dambeeyay ku soo guuleystay 10 aan nahay qof wax badan u soo joogaya tahay aqoon u leh dhanka beeraha bal dhankaaga shakhsi Soomaaliyeed tahay muwaadin wax badan beeralayda inuu u bidhaamiyo loo baahan kaalintaadii ma gudataa والله هذا مالا كو غتو موجيد beertayda ku ekahay been wal sheegay soo arimaha si waaye badan qof ka soo shaqeynaya beeraha diyaarta in dadkaasi wacyi gelin loo sameeyo caqabadaha beeraha ka haysta ka warqab la'aanta beeralayda beerahooda taasoo sabab u noqotay sida la sheegay in cayaana ay ku dhashaan arimahaasi waa haddii oo waxna lagala shaqeeyo maamul aan helno kulliga wax kasta maamul ay leeyihiin magta haddii shayga hadduu administration maamul uu lahayn ma shaqeyn karo laakiin shayga waa inuu maamul leeyahay oo u yimaado ama shaqada amro ama fuliyo qofna waa fuliyo qofna waa amre magta daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka beeraha iyo xoolaha ayaanu isla soo gaarnay ugu dambeyntii guntii gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay qaybo kale oo barnaamijkan waa idin sameyn doonaa oo aan aqoonyahanka iyo qabiir Hussein Maxamuud Jimcaale aan ku casuumi doono iyadoo iskaashada dhul beereedkooda aanu barnaamij idinkaga soo diyaarin doono ugu dambeyntii maxaa ugu baaqay guud ahaan beeralayda ku daawanaysa xilliga wallahi beeralayda daawanaysa horta markii ugu horeyso waxaan leeyahay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan horta codsi u dirayaa markii ugu horeyso codsi amar malihi aniga magta codsi aan leeyahay codsi aan u dirayaa codsiga waxaan ugu dirayaa in la helo kor u qaadida wax soo saarka waxaan gobolkan wuxuu ku magacaaban yahay gobolka wax soo saarka iyo xoolaha haddana kama muuqano marka sidaa darteed waxaan maamulka Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa maamulka Hirshabeelle inuu nagu taageero wax soo saarka iyo dhinaca beeraha macnaha aninkana ay wada gobolka maamulkana waa horumar aninkana waa horumareena taasaan codsi ugu direynaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe beeralayda kale dhigaaga beeralayda kale dilkaygana waxaan ugu dirayaa iyadana inay wax soo saarka kordhiyaan ay shaqeystaan waayo maanta waxa waaye gacmo wada jiray wax ku gooyaan
annagoo midaysana wax samaysan karnaa annagoo kala dilan ama maaragtay wax ma samayn karno marka annagana waxaan rajaynaynaa haddaan helno maamul noo daacadoo nala shaqeeyo in annagana wax soo saarkeena kordhi doono insha Allah way aad u mahadsan yahay Xuseen Maxamuud Jimcaale oo ku magac dheer Daamey oo ah gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeralayda horseed oo marti inagu ahaa waana qabiir way badan ka soo shaqeeyay arimaha beeraha ama tacabka beeraha si weyn baan kaga mahadcelinaynaa sida quruxda barnaamijka aad nooga aqbashay isla markaana aad uga qayb qaadatay ما تصدق علينا كأجا علنا مات. وي أنا قاعد الحامدين برنامج كويدين سو جديد لك كاميرا دم وخلف كويدين سو قارية اللي بان لك من أيها كقابية فرسمدنا واحد ناصر السعودان وبعد برنامج كبيرها يحلا ويد الله سيدنا بتقول يا أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق.